Ano wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta wararka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona dowladda Qatar oo wada istiraatiijiyadii ugu xooganayd oo ay saameyn ku yeelan doonto doorashada Soomaaliya musharaxiin gaar ah oo ay wadato leeyahay dowladda Qatar oo ay rabto inay soo saarto doorashadan soo socota ra'iisul Soomaaliyana waxa uu wadaa in uu isbedel ku sameeyo ciidamada amniga Soomaaliya oo la rabo inuu gabi ahaanba uu meesha ka saaro talisyada ciidamada qaranka Soomaaliya oo isbedel xoogan oo ku sameeyo midowga musharaxiintana waxa ay soo dhaweeyeen in ay dadaalka u wado ra'iisul Soomaaliya ee ku aadan doorashooyinka Soomaaliya beesha caalamkana waxa la filayaa in iyadu ay ku dhawaaqdo in shirka la mudeeyo oo xilli kooban loo qabto doorashada Soomaaliya qodobada iyo qodobada kale aad ku maqtaan barnaamijkeena falanqaynta wararka aanu ku bilaabanay dowladda Qatar ayaa waxa ay wadaa garaangalkii ugu xooganaa ee ay kaga hadlayso doorashada Soomaaliya wafti sare oo ka tirsan dowladda Qatar ayaa waxa ay soo galeen magaalada Muqdisho iyaga oo la kulmay ra'iisul Soomaaliya waxayna kaga hadleen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee gaarka ee u qaabilsan arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Qatar maqtal ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho kadib markii uu ka soo laabtay magaalada Hargeysa ee Somaliland shalay waxaan la kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waftigan ayaa waxay ra'iisul Soomaaliya ay kala hadleen in ay doorashada Soomaaliya si degdeg ah loo qabto iyaga oo la sheegay in dowladda Qatar haddaba ay wado musharaxiin gaar ah oo ay si toos ah u taageerayso kaas oo ay kala hadlayso ra'iisul Soomaaliya dowladda Qatar ayaa waxa ay u sheegtay ra'iisul Soomaaliya in ay rabto in doorashada Soomaaliya si degdeg ah loo qabto iyada oo sheegtay in ammaanka iyo waliba qarashaadka ay kala qayb qaadanayso waftigan ayaa waxa ra'iisul Soomaaliya ay sidoo kale kala hadleen in aan doorasho cadaalad ay ka dhacdo Soomaaliya iyadoo dowladda Qatar sheegayo in ay wadato musharaxiin gaar ah oo ay rabto inay soo saarato ilaa 3 gaaraya sida la sheegayo waxa wararku ay intaas ku dareen ra'iisul Soomaaliya uu ka aqbalay dadaalada ay wado dowladda Qatar oo ku aadan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxaana ugu dambeyn waftiganu ay sheegeen in dowladda Soomaaliya in dowladda dalkaas Qatar ay Soomaaliya kala shaqeynayso doorashooyinka Soomaaliya iyadoo oo la sheegayo in musharaxiinta qaarna ay si hoose ula kulmeen dowladda dalka Qatar ee saameynta xoogan ku leh Soomaaliya ra'iisul Soomaaliya ayaa waxa uu wadaa dadaaladii ugu xooganaa ee uu meesha kaga saarayo talisyada ciidamada xoogga dalka qaarkood oo musharaxiintu ay ka muujiyeen shaki weyn ra'iisul Soomaaliya oo shalay madaxweynaha madaxweynaha ku soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u xilsaaray arrimaha doorashooyinka iyo amniga ayaa waxa la soo sheegay in uu hadda wada dadaalo xoogan uu ku bedelayo talisyada ciidamada xoogga dalka waxa la warku ay sheegayaan in hadda uu wado in uu bedelo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo waliba booliiska sida wararku ay sheegayaan iyadoo oo la sheegayo in talisyo kalena ay maalmaha soo socda ku soo xigaan wararka ayaa sheegay in ra'iisul Soomaaliya uu u xilsaarayo wafti nabadeyn oo kala dhex gala ciidamada isku horfadhiya magaalada Muqdisho kuwaas oo sheegayo in uu shir u qaban doono ra'iisul Soomaaliya odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho iyo waliba saraakiisha ciidamada ayaa la filayaa in xalfad loo qabto oo taasoo la sheegayo in isdhexgal ay sameyn doonaan ciidamada haddaba isku horfadhiya magaalada Muqdisho ee ka soo horjeeda muddo kororsiga ay samaysatay dowladda Soomaaliya walow hadda waliba ay ka laabatay midowga musharaxiintana waxa ay shaaca ka qaadeen in ay soo dhaweynayaan dadaalada u ra'iisul Soomaaliya warqad ay soo saareen midowga musharaxiinta qaranka oo ay ku saxiixan yihiin midowga musharaxiinta ayaa waxa ay sheegeen in gabi ahaanba ay soo dhaweynayaan in ay taageero weyn u muujinayaan dadaalka u ra'iisul Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa inuu qabto doorasho xol iyo xalaal ah oo ku dhisan isfahan iyo waliba wada ogol ayay yiraahdeen waqtigeedana ku dhacda midowga musharaxiinta oo soo saaray warqad ay kaga hadlayaan doorashada Soomaaliya waxaan soo dhaweynaynaa in ra'iisul Soomaaliya dadaal kasta uu ku bixinayo waana kala shaqeynaynaa doorashada laakiin waxaa loo baahan yahay in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo Soomaaliya waxaa ku saxeynaa warqadda midowga musharaxiinta intooda ugu badan iyaga oo sheegay in ay soo dhaweynayaan dadaal kasta oo uu wada ra'iisul Soomaaliya horay waxay u soo saareen warqad ay shalay ay ku taageerayaan in muddo kororsiga laga laabto waxaa hadda Soomaaliya ay cagta saartay baa leeyahay dhinacii doorashooyinka Soomaaliya kadib markii ay baarlamaanka Soomaaliya shalay ay ka laabteen iyo madaxweynaha madaxweynaha ku soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka siyaasadda faleeqaya ayaa sheegaya in madaxweyne kasta oo hadda Soomaaliya ku soo ama qabta xilka inuusan ku hamin doonin inuu 4 sano ee soo socota uu dhameysto uusan waxba ku darsan taas la leeyahay waa dariiq sax ah oo ay fureen midowga musharaxiinta qaranka
Soomaaliya. beesha caalamkuna waxaa la sheegayaa in haddaba ay wada dadaalo xoogan oo ay rabto inay ku cilaamiso dadaalo ay shir ugu qabanayso Soomaaliya oo ay kala shaqeynayso ra'iisul Soomaaliya. beesha caalamka ayaa la sheegaya inay soo saari doonto warqado ku aadan arrimaha Soomaaliya, Mareykanka, Midowga Yurub, dowladda UK, Australia iyo IGAD, Jaamacadda Carabta iyo waliba dowlado kale ayaa la sheegaya inay soo saari doonaan warqad ay kaga hadlayaan arrinta Soomaaliya iyaga oo ku garab taagan ra'iisul Soomaaliya. wararka ayaa intaasi ku daraya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hadda uu haysto taageero weyn oo beesha caalamka kadib markii madaxweynaha mudxuleedka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gabi ahaanba uu iska wareejiyay arrimihii doorashooyinka iyo amniga Soomaaliya oo haddana uu kamid yahay baa leeyahay musharaxiinta kale ee la tartamaya. waxaa beesha caalamku ay wada dadaalo xoogan oo ay ku qancinayso madaxda maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland oo si weyn uga soo horjeeda madaxweynaha mudxuleedka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo haddaba ra'iisul Soomaaliya arrintaas uu kala shaqeynaya baa leeyahay. guud ahaan barnaamijkeeni falanqaynta wararka waad kala socotaan channelkan ku leenahay abshir kale YouTube wareegtaanse haddii hore aad nala joogtay waad ku mahadsantahay. dad nagu cusub tahay nagu sabiir nabadgelyo.